السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadweynaha iga daawanaya Facebooka waxaynu soo bandhigayaa sawirkan iga dambeeya oo aan sameeyay 2020 bartankiisii waqtigii lagu joogay waqtigii adkaa ee lagu jiray coronavirus sawirkan waxaan u sameeyay run ahaantii waa sawirkan aad arkaysaan waxaa ka muuqda waa sawir markiisii hore quruxdiisa la sameeyo sawiro la isku dardaray oo maaragtay nooca loo yaqaano abstract weeyaan habase ahaatee nooca abstract wuxuu ka kooban yahay ranjiyo maaragtay sida hal abuurka oo kale weeyaan waxbaa kugu dhalanaya amba sheeka lagaaga sheekeynaya amba waxbaad maqashay markaasaad iyaa waxbaa kugu soo maaxaya aragtibaa kugu soo maaxaysa sida ninka abwaanka markuu heesaha qoraayo amba gobayada qoraayo ereyaa kusoo maaxa markaasuu qoraa ragga buugaagta qorana waa sidaasi leeg marka walaalayaal waxa weeye ninka artistigana aragtiba u sawiranta aragtida markay u sawirantaan marxaladda lagu jiro iyo waqtiga la joogo iyo ka turjumaysaa sawirkan aad arkaysaan iga dambeeya kularo waxaa maaragtay ka dambeeya casaan iyo huruud iyo akhtar iyo blue iyo waxaasi maaron iyo waxaasoo maaragtay nooca abstract loo yaqaano laakiin waxaan duldhigay wax la yiraahdo xoob baa dul yaalla xoobkaa dul yaalla wuxuu ka turjumayaa murti baa ka dambaysa shaygu intuuna dhalan xoob baa saaran xawayaanka hadday tahay iyo haddii maaragtay bini aadanka tahayba markuu maaragtay soo urursanayo uu dhalanayo xoob baa saaran markuu dhashana quruxdiisaa soo baxda marka iminka waqtiga iminka waxbaa isa soo urursanaya waxbaana dhalan doona oo run ahaantii waa sida daraaddeed wuxuu xoob kuu saaran yahay cishada waxaasi maaragtay waxaasi ay dhashaanna xuubkaabaa iyo dilaacayo waa dadku inay yiraahdeen waad xuub dhacsatay waad qurux badnaatay bay ka dhigan tahay markaasi sawirkani wuxuu ka turjumayaa wuu xuub dhacsan doonaa laakiin imika xuub baa saaran haddaba maxay tahay xuubkaasi waxa weeyin dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu la cararaan xagga siyaasadda oo waxbaa iminkana saaran oo waan xuub dhacsan doonaayo revolution baa soo socday waxyaaba noocaasi inay dadka qaarkood u turjuntaan baa dhici karta laakiin se aan waxaan leeyahay noloshu wax dhammaata maaha waa wax socota oo kolba maalinta ka dambaysa darajadeeda kolba meel la gaadho oo run ahaantii ood meel aada gaadhaysid meel aada maaragtay horumara aada gaadhaysid markaasi waxa weeyin waxaan ka soo qaaday heerkii aan 30 sannadood ka hor markii aan artiga bilaabayay waqtigii aan joogay iyo waqtiga maanta aan joogo iyaa weli maaragtay jaranjaradii baan socdaa oo maaragtay insha allah maaragtay lagu gaarayay xaggii ugu sarreysay marka sawirada abstractga waan kasoo sheekayn doonaa maalin kale aan ka sheekayn doonaa muhiimadda ay leeyihiin laakiin sawirkan gaar ahaan iyaan ugu talagalay waa sawir xoob dhacsanaya mar dhow oo waxbaa soo socda waxaa soo socda waa wax dhalan doona maxay noqon doonto marka ummadda reer Jabuuti baan u dayn doonaa intaasaan kusoo koobayaa sawirkan waxaan sameeyey 2020 baan sameeyey bartankiisii waqtigii adkaa ee coronavirus markii lagu jiray iyaan maaragtay aan sameeyey insha allah waxaa dhici karta in maaragtay la heli doono tallaalkii vaccinationkii taabaa keeni doonta inuu xoog dhacsado waxaa dhici doonta inuu adduunyada isbeddel ka dhaco waxaa dhici doonta inuu maaragtay dalkii aan ka imanna isbeddel ka dhaco waxaa dhici karta inuu dalkan aan joogno isbeddel ka dhaco markaasi waxbaa xoog dhacsani doona oo soo socda hadduu ilaahay yidhaahdo marka sawirkii caadiga ahaa ee la sawiray xoog baan saaray xoogkaasi oo maaragtay run ahaantii aan ugu talagalay maaragtay ilaa maalintii wax dhalanayaan uu sidaa ahaani doono markaasi waayadii hore meelahan baa la saxeexi jiray
iminka lama saxeexo oo xagga dambaa la saxeexaa. markaas waa sidaas weeyaan oo sawirkaasi waxaa la yidhaahdaa maaragtay waa sawir revolutionary, waa wax soo socda, wanaag soo socda weeyaan. ilmuhu markuu dhalanayo caloosha hooyada ku jiro uu soo baxo xub yar baa saaran, waa taas weeyaan. intaasaan kusoo koobayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.